halkan maanta waxaan qadka igu jira Asma Cali oo maaragtay dadka u furfurcoon diradhaba dhalinyarta diradhaba ah waxaan ka wareysanayaa walaashay dad baa igu soo xiriiriyey oo iga yidhi gabadhaas waa gabadh u furfurcoon danta dadka ninka danta dadka doodoona dantiisu ilaahay doodoona soo dhawow Asma Cali walaashaydii waan dhawahay inaadeer aad baad u mahadsantahay maasha allah waxaan ka wareysanayaa hawshii ka dhacday diradhaba ee xabad muuse sida loo soo dhaweeyey ayaan ku farxnay oo waxaan ka wareysanayo waa soo dhaweyntii xabad muuse colaad dhibaatadii kaga dhacday labada qof ee Soomaaliyeed ee walaalihiya ayaad ka maydheen bal iga waran soo dhaweynta xabad muuse colaad ha ku soo dhaweyseen diradhaba oo isla socda rag iyo dumar marka horeyte bismillaahi raxmaani raxiim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli aad baad u mahadsantahay saad igu soo dhaweysay martabadii maamuusta bale waan kaaga mahadcelinayaa runtii horta dee kaligeenu mayna wada taabin arrinka xabad muuse colaad alfanaan xabad muuse colaad waad arkayseen horta waxaa la yidhaha waxay indhuhu arkayaan bay ilkuhu gooyaan sidii horta ma wayna wada taabatay loogu xushmeyn waayey ama loogu soo dhaweyn waayey magaalada qaranka Soomaaliyeed ee shanta Soomaali isku tagtay magaalada Muqdisho hase ahaatee magaalada diradhabe baaq goboleed baa loo dhigay waxaa lagu yidhi ku soo dhawow magaaladaadii dadkaaga iyo dalkaaga runtii soo dhaweyn quraata ma ahayn waxa la mooday in uu show la qabanayo ayay dadku mooday laakiin soo dhaweyn bay ahayd hotelka ugu weyn ee magaalada diradhabe ayaa loogu qabtay airportkii baa la buuxiyey hotelkaas la buuxiyey runtii wax la sheegi karayo oo dee maanta aan ku soo koobi karay hadal yar ma aha soo dhaweynta xabad laakiin taariikh weeyi dadkiisiba u damqaday ummadda Nabi Maxamed ee Soomaaliyeed oo dhan ee magaalada diradhabe ku nool anoo de kala qaadaynin oo odhanaynin hebel iyo hebel laakiin waa loo wada dhaqanaa Soomaali oo dadka Soomaali galbeed oo dhan baa u dhanay sida lagu indhaysiga lagu indho Hargeysa lagu indho Absaada lagu indho meel walba lagu indho afarta been garsiga kala fiindo kor u yara hadal maalinkaas diyaaradaha dadka qaadaya xataa soo buuxsameen afar diyaaradood baa lagu soo kala raacay buuq darteed in isaga uu laga soo horeeyo diradhabe lagu soo dhaweeyay saaba looga soo baxay runtii maalinka maalin la iloobi karayo ma aha taariikhda ayaa wax qorta taariikhday gashay maalinkaasi fanaankaasi fanaan aad noogu weyn buu ahaa runtii hadallada isagoo ka yeedhay markii uu masraxa Muqdisho uu joogay baa dadka taabtay inkastoo iyagu xumeeyeen buu yidhi allaha barakeeyo taasaa dadka taabatay maasha allah waxaan roolaba waa loo soo joogsaday maxaad u sheegaysaa imika ayaan dhow shalay waxaa la soo geliyey TikTok ku yaroo maaragtay u dhaqdhaqaaqa dadka maaragtay la dhibaateeyo amba maaragtay dadka maaragtay qof kasta u dhaqdhaqaaqa rag iyo dumar oo la yidhaaho King Faris ayuu u sheegay uu xabad hambalyo halka uga diray oo maantaan arkay kolkaasi wuxuu ku socdaa waddanka Jabuuti maxaad reer Jabuuti u sheegaysaa inay rekoor qof Soomaaliyeed dhige oo show uu dhigo oo Soomaaliyeed ka diradhaba ka dhacay weligeed lama arag oo lama maqal maxaad u sheegaysaa dadka waddankiisii uu ku socdo reer Jabuuti maxaad u sheegaysaa horta waxaan leeyahay guntu waxa iska hadashay gobtu maxay tiri runtii waxaa sugaynaa reer Jabuuti horta way imaadeen oo indhahoogay ku arkeen wixii magaalada diradhaba ka dhacay magaalada diradhabana xabad waa u dhashay isaga iskale waa gurigiisii uu ka tagay gurigiisii uu tagayaa magaalada Jabuutina kolley wax saas ma aragteen looga duwan ma aha waxaan u maleeyaa sida diradhabe si ka daran in loogu soo dhaweyn doono insha Allah taala inkastoo reer Jabuuti u joogeen ba wixii halka ka dhacay
wacdaradii halkaa ka dhacay tuka daran isaga oo calankii Djibouti sita ayuu magaalada tagayaa waxaan leenahay dee lagu soo dhaweeyo xabad muuse colaad kolley waa istaahilaa soo dhaweynta ka weyn waa istaahilaa dadkiisana waa ka sugayaa maasha allah waa ku soo noqonayaa waxaad ka dhawaaqisay meel kasta laga yimiday shanta Soomaaliyeed baa laga yimiday oo diyaaraddu way buuxday diyaaradii inuu la socday hamoodayna lama socon oo annakaan naxnay oo maaragtay kolba diyaaradda uu soo koraayo lambarkaygaan soo sheegaynay oo meediyaaga way saysatay gudiga dibadba dadka rag iyo dumar ka yimiday Djibouti ee maaragtay hablaha sharafta leh inamada sharafta leh tiktokerada kameramaanka maxaad ka oranaysaa adoo kala qaadqaadeen runtii anoo kala qaadqaadeen waxaan leeyahay kolley gobnimada waa loo dhashaa gobnimadana dee waa la arkay waxaan u maleeyaa goobtu way naga horeysay ha camirtad meesha oo tiitu ka daran hadhigaan baa le taariikhdu ha istagto yaa loo kala hadhin aad baad u maasatahay adiga asma ahaan asma cali ahaan ma laga yaabaa inaad ka sii horreysidba amba raacdidba ma laga yaabaa haa waan rajaynayaa maasha allah maxaad ku dardaaraysaa inamada yar ee sharafta leh ee maaragtay dulumka oqoon ee weli iloobila wixii lagu wixeeyey xabad muuse oo dad hore oo fanaaniin hore iyaa lagu wixeeyey xabadna kii u dambeeyey waa inuu noqdo hore baan u idhi oo tiktok igaan ka idhi laakiin horey baa dad lagu wixeeyey oo hebel iyo hebel iyo hebel aan u garanayo oo dhul Soomaaliyeed lagaga wixeeyey anoo ibika dib u soo kicinayn hadalkii laakiin maxaad oranaysaa dib dambe inay fanaan reer Djibouti amba fanaan Soomaaliyeed hay ugu dhicin ma leedahay dadka shanta Soomaaliyeed horta ninka beed kiisa kugu dhis nin aad ugu tagtay gurigiisa oo kugu cuseen waa gurigiisa waa gudnimo ninka gurigiisa ka yimid gurigaaga indeed ku cuseysana waa gobonimo waxaa leeyahay horta in badan waa arkay taariikh ahaana waan maqlay gobonimada qaata idinku laakiin mararka qaar in baasha la isbaro way qurux badan tahay oo meesha loo qaado dadku isaga intuuna hadduu maad aragtay xanuunsan buu ogaanaya xanuunku inta ay leedahay temperature ku kacsan yahay haddii aad qofka xanuunin weydo qofkaasi ma ogaado qiimaha mar horta waa inaad bartaan oo masraxa loo yar faaruqiyaan odhan lahaa inkastoo de aan ugu la talinaynin dadka maad aragtay imika generationka imika soo kacaya ama jiilka imika imanaya ee soo kacaya inkastoo xumaanta caynkaas aanan ku siin riixan haddana waxaa leeh hayar baraan oo hayar tusaan in masraxa loo faaruqiyo dadku shucuur caynkee dhalinaysaa waa inay tusaan marar in lagu celceliyo iyadoon ahayn mararka qaar waa in la istusaa baasha maasha allah laakiin xabad kii ugu horreeyey uu ku waxeeyey maahin inan ka yar ee magaciisa aan sheegayn magaciisa in la sheego jecel yahay oo ninkii xabad ku soo dhaweeyey jigjigana uu ku waxeeyey maxaad farriin u diraysaa dadka heesaha xabad ku qaraabsanayay oo xabad maaragtay saliid madow ku shubay lahaayeen laakiin ilaahay kuma shubin rabbi kuma shubin qofka kolkuu aamusan yahay waa nin sharaf leh dadku waxay moodaan doqon bay moodaan maxaad ku leedahay maxaad hawada u marinaysaa labada qaaqle ee dadka wixii ku shaqaysanay ku bariisleynayay ee sidan waxaynaya horta waraysiga daba lagaga qabtay xabad muuse colaad oo lagu yidhi haddeed miyaad isleedahay heesahaagii lagu bariiseynayey maad u fasaxaysaa su-aal caynkaasaan hor dhignay deetana wuxuu ku jawaabay xabad anoo nool heesahayga lama qaadi karo iyadoona fasax layga soo weydiisan maadaama hadalkaan hayno nin kastiba wuxuu isagu samaystay uu leeyahay ayuu haddee memoriku hees way dhammaatay marka iyaga waxaan leenahay allaha ni barakeeyo laakiin waxaad idinku leedihiin masraxa la soo joogsada xabadna wuxuu yidhi ma dhici doonto haddii tolo heesahaya in lagu bariisin doonin taasna isaga ikhtiyaarka iskale oo waxiisi weeye intaasuuna noo sheegay waraysigii aanu ka qaadnay magaalada Baradhabo ka qaadnay ee baraha bulshada qabsaday waaga dhowe marka isaga maadaama ay ka soo go'day taas hawada loo mariyay farinta already way haystaan jeebada ku haystaanba
aad baad u maasan tahay dadka fanaaniinta reer jabuuti hadday tahay cawaale hadday tahay nimco jaamac fanaaniinta oo dhan ayaa heesahooga la qaadaa maxaad ku waaninaysaa adduunkii heer buu gaadhay inaan heesahooga qof kastaba la qaadin maxaad ku waaninaysaa wada u marinaysaa waxaan leeyahay nin kastoo heesihiina qaada baad ka qaada no more copyrightka layska joojiyaa la dhahay sababtoo ah cid kasti oo heesahooga la qaadi way nool yihiin ayagana kasoo heli doona waxaana ku casuumi doonaa magaalada diridhaba fanaaniinta qaranka ee magaalada jabuuti insha allahu tacaala waxaa kusoo casuumi doonaa iyagana mar kaleeto dhammaantoodba ayagoona kala saarsaaraynin magaalada diridhaba ayay noogu casuumnaan doonaan taxabad markay naga dhammaato halkaasaan ka shaacin doonaa iyagana aan odhan doonaa no more copyright aad baad u fiican tahay dadku maaragtay dad ubaa horgala arrintaa inaad ka shaqaysid baan kugu waaninayaa oo maaragtay diradhaba rekoorkaasi laga qaadin oo tartar la galo oo dadka maaragtay xabad baa lagu toosay oo anigu maaragtay dadka hadal baan ka qoraa cumar baarbaar baan ka qoray war ishana ka seexda ilaa ka soo jeeda kolkaa dadka nin kastoo abwaana iyo nin kastoo heesaba waano shanta soomaaliyeed maxaad u marinaysaa halkan soo gabagabee anigoo kusoo gabagabeynaya barnaamijkaaga aadka u qurux badan iyo waraysigaada la yeelatay waxaan leeyahay fanaaniinta dhammaantoodba horta fanaanku waa qaran qabiil ma aha fanaanku maadaamuu qaran yahay meel kastina uu meel xinjoog weeye horta meel xinjoog weeye markaan ku leeyahay waa sidan oo kale meel isagu ka macalin ahaa ayay ardayda u jaraysaa oo waa tamiimka soomaaliya ka dhacday ee muqdisho xabad kasoo qabsatay inkastoona dee wax saas ahayn ay ku dheen haddana waxaan leeyahay fanaaniintu intay isku daydaan mid intay noqdaan waa inay waxooga iyo dadkooga iyo dee meelahay joogaan ay connectionkooga wanaagsanaan haddii imika saas u odhan waxbad isagu uu ku madaragteen uu ku qudbadaynin labadaa qof unbaa ximiyey soomaali way fiican tahay dee soomaali xumaan baanan u haynay runtii hadduuna isagu naga jaahil tirin xumaantaas way nagu sii dhex faafilahayd inkastoo isaguna naga qabtay khayr allah siiyo sidaa darteed waxaan leenahay fanaaniintu waa qaran meel kastina way tagaan meel kastina way joogaan nin kastiba ninkiisa garabka ku qabto oo nin kastaba ninkiisa hawa camiro insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabeynaya masha allah gabadha waxay ahayd walaashay asma cali oo afhayeenka dhalinyarta diradhabe rag iyo dumarba ah oo dadka u furfurcoona allaha sharaftaada iyo maamuustaada allah ku ilaaliya adiga maaragtay hablaha khayrkaayoo dhan iyo inamada khayrkaayoo dhan maxaad ka leedahay geel tv ku xidhnaada fanaaniin hadday tahay abwaaniin hadday tahay waa youtube-kiinnii maxaad ka leedahay hormada u marinaysaa geel tv dadka soomaaliyeed cid kastoo codkaaga iyo muuqaalkaaga daawatahay waa inay channelka subscribe iyo like saartaa ayna fogeysaa meeshaas dio meel ninba waa ninkiisa kor u qaado baalkaas insha allahu tacaala waxaa leeyahay like subscribe-ka la bakhaylina ما شاء الله سلام ما ترى ومولود النبي محاد ضدك مسلم قال هان صومالي محاد وقد عينيسا وفلسطين وقد عينيسا إلهي من نمديني موافقات إذا مدها كدقو بقينا نبرعاد الله يسكو مرشا فلسطين وحاو رجينا حر iyo nabadgelyada midnimadooda waarta insha Allah taala oo Baytul Maqdis gacanta ku dhigaan idanka Ilaahay ما شاء الله taas waxay hayd maxamed waxa leeyahay waalid wanaagsan ka gudoonay taas waxay hayd asma cali afayeenka dhalinyarta Soomaaliyeed ee rag iyo dumar bale ee magaalada diradhaba janno kusoo qulqula dadka doonaya fankooga sharafta leh meel kastay joogaanba diradhaba way nii furantahay dadka sharafta leh aad baad u maasantahay sanadkiisa barwaaqo iyo baraaro iyo inakoo diradhaba isla joogna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته